واتاي باك تو باك سelection في اي بي عجيب halkan si toos ah nooga daawanaysa waa barnaamijkeeni waxaan ka soo jeedinaa xaafadda Islii waxa ay taagan hay warsame ku soo dhawo barnaamijka aniga warsame caawda deehan doono wuxuu ku saabsan yahay intiisa badan oo soo socon doono waxa waaye Soomaalida fiirinayna iyo sheekha ugu jecel yihiin in sheekha ay taageeraan ayaan arki doonaa ma sha Allah maxaa leedahay asxaabtu waxa leeyahay YouTube kan lagu soo xirnaado subscribe like share comment igana de gambaleelkana dhacdhaca lagu soo sii amal si hal furta leedahay notification-ka waatahay aad weyn waan salaameynaa kaamirada waxa duubay Saxi Boy iyo kaamirada kale tan waxa noo hay walaalkan Xamse Wadani dhimantii waxaan leeyahay fariina gaarsiiyay channel wiil kale oo Soomaaliyeed magacaaga walaalkay magacaygu Axmed Maxamed oo ku soo dhaw VIP عجيب waan dhawahay baa waatahay barnaamijkii Ramadaanka wadnay dabcan taraawixda ka timidaan filaaya taraawixda waatahay barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay culimadeena Soomaaliyeed Allah wada barakeeyo dhamaan qof walba qof ay si fiican u dhigaysaa oo jecel yahay markuu uu muxaadareynayo oo ugu baxda adiga kee ugu baxda aniga waxaan jeclahay Sheekh Xasan aad u jeceshahay aad u jeclahay aad shaqo soo tagan waatahay maxuu kaga duwan yahay culimada kale sidii kartaa culimada kale Sheekh Xasan wuxuu kaga duwan yahay runtu sheegay diintu say tahay xaq u sheega waan gartay sadarteed baan Sheekh Xasan u taageeraa sidaas u taageertaa waatahay waxaan ku weydiinayaa waxay tahay maxaad isdhihi kartaa kuwa kale inay kaga daydaan Sheekh Xasan kuwa kale waxaan jeclaan lahaa inay mataqaanaa ay kaga daydaan xaga geesinimada in Allah la yastahi min al-haqq shay la haqq kalma xaqa ka xishoon way xaqa say tahay u sheegan ayaan ku boorin lahaa dhamaantood maxaa isdhihi kartaa barnaamijyada bulshada dhexdeeda ka dhiman oo culimada ay hadda ka jeefaan xaga wacyigelinta dhalinyarada sax wax u sheega sax waxyaalaha xunka reebka hadda wadankan aan joogno waxa ka jira dhalinyaro dadka tuuriyo ku qabato dadku wax ku yeesho ugu dhibaateynayso dad waxa jira mataqaanaa terrorist oo ma garanaysa ka faa'iideysan dhalinyarada xoogooda ka faa'iideysanay waxaan doonayaa waxaas oo in wax ka qabtaan oo ay wax u sheegaan inaysan waxaan diin ahayn aadan kaga madxalnaa ku soo dhaw channelkeena aad mahadsan tahay waxa ila taagan mid kamida hooyooyinka xaafadda Islii ku soo dhaw VIP عجيب waan dhawahay magacaaga ayaan waxaan ku weydiinaynaa waxay kamid tahay culimada Soomaaliyeed dhamaan waa dhageystaa waa la wada jecel yahay bal adiga ayaan ahaan shakhsigeed isdhihi kartaa saameyn ayuu kugu yeeshaa marka dhageysanayso Sheekh Mustafa iyo Sheekh Umul iyo Sheekh Mustafa maxay kaga duwan culimada kale isdhihi kartaa iyaga aad wacdigooda iyo diinta si u fidiyaan u jecelahay aad u jeceshahay waatahay halkan maxaad ka dhileed kuwa kale marka culimadeena kale kuwa kalena ku dayda Sheekh Mustafa iyo Sheekh Umul say diinta u faafinayaan labadaas nin inaba caadi maaha maxaad isdhiileed culimada maanta booskaana banaan inay ka hadlaan ficnaan lahayd oo ay baraarujiyaan ma inay diinta baraarujiyaan dadka ay dardar geliyaan oo diinta iyo naxariista ay dadka aad ugu naxariistaan oo si naxariis loo geliyaan baan ka hadlayaa sidaas wakaas annagana aadan kaaga madcelinayna waa mahadsantahay waatahay waxa ila taagan mid kale magacaaga warsamo horta channelkaaga waa soo dhaw kuma dhahayo laakiin waxa ku leeyahay bal culimada Soomaaliyeed waa dhageysataa culimadeena Allah barakeeyo cimrigana u daayo dhamaantood way fiican kee adiga aad kugu baxdaa aad dhageysataa Sheekh Dabcasar aad u dhageysataa ma sha Allah muxuu kaga duwayaa culimada kale sababtoo ah sheekh fani waa sheekh fani sax oo mar walba ay qosliyo mar walba uu ka qosliyo waatahay waxaan ku weydiinayaa waxay tahay bal Sheekh Dabcasar maxaad isdhihi kartaa bulshadu ku soo kordhiyo wallahi waxaan isdhihi karaa sababtoo ah waxyaalo badan aan ka faa'iidnay sax والله واحد انت لو كوبي كرم لها حكمده وحكمده وعدياشيس دان سو حسوستو ماموين كبخayaan muxuu dhaw dooda dhagdhag ka siinayaan waa garoobay badiyeen waa sheekh fani waa sheekh maroo dadka qosiyo sax oka marka asaga taageero waatahay anagana aad kaga madcelinaya aad ma santahay wiil Soomaaliyeed magaca walaal Mukhtaar aadan baleeyay Mukhtaar dabcan xaafadda Islii ku nooshaa aad weyn ku soo dhaw salaadii taraawixdan soo tukanay dhamaantanada ma sha Allah ilaahay anaga aqbalo soonkiisana ilaahay nimciya barqashiga barwaaqay inuu gaarsiiyo ilaahay inuu gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed ilaahay waxaan ka rajeynayaa
in maaragtay isdubnaan iyo walaalnimo iyo wanaag ilaahay inuu siiyo bishan Ramadaan wixii ka dambeeyay ilaahay ummadda Soomaaliyeed inuu mid ka dhigo inuu ilaahay maaragtay maxay ahayd tubta toosan inuu toosiyo dhamaanteed inuu dambi dhaafo ummadda Soomaaliyeed waxa ka codsanaya gidigeed bishan waa bishii dambi dhaafka in maaragtay maxay ahayd la iscafiyo yaan ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed ka codsanaya adigana aad iyo aad baan ku salaamay walaalkay aad weyn oo ku salaamayna ku soo dhawaafiyay bi'ajib markale ku leenahay su'aasheenii oo gudbeenan waxa jira culimo Soomaaliyeed oo daaciyaal oo diinta islaamka aad u fadiya oo dadka Soomaaliyeed mar waliba baraarujiya marka dadku way kala duwan yihiin ayadoo culimada la wada jecel yahay oo dhamaantood culimadani yihiin haddana qofka samid ay u badan yahay ku xiran yahay mar walba u dhageystaa adiga shaqo u badan tahay dhageystaa noo badana culimada fara badan baan u dhageystaa culimada Soomaaliyeed aad baan u dhageystaa sax saddex culimada kamid ah يعني أدي أدو دقيستا بدنا صدق شيخ وحوي شيخ محمد عبد أمل ابن حريستي باسيو الدنيا آخرة عمرك الله داريو عمرك سنة الله بركيو أمد الصومالية كثير في عنا ونكسم بوجرة إلهي وناتشيو سو كل وحنا أدي أدو دقيستا شيخ الله بعده شيخ مصطفى حاج إسماعيل إلهي بركيو سجن سو كل أدي أد بان أقول إنها برمشي سو دقيستا وعن سو كل أدي أد سجن أقول دقيستا أقول إنها إلهي بركيو شيخ حسين علي جبوتي إلهي نحرس جنا كورابيو يوم مشايخ خاصة أدي أدو دقيستا مشايخ الصوماليين نحرس إلهي ولا نرشوا يدون كل وضع ولا ده معنا قف كهلا نحرس تدير ده إلهي نحرس تدان ده هنا جيري كهلا يعني الله مرين نحرس تيبي مركان نور شاينا وابو بانتاي markaad dhimatana waa u baahan tahay ma aha in loo fasiro dhimashadu oo kaliya mashaayixda aan sheegay saddexda waa nool yihiin ilaahay cumrigooda ha u barakeeyo maalinka dhintaan kitaabkooda midigta Allah ka siiyo waa mashaayix aad iyo aad u wanaagsan cilmiga iyo diinta ay faafinayaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu maaragtay u barakeeyo innagana kuwii ilaahay qaata ee anfaca inaga dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku weenayaa niman yahood inta la daawanayo waxaan faa'iido lahayn mashaayixdeenu waxay wadaan dadaal aad u weyn waxay xambaarsan yihiin sida aan ka warqabno aan ka warhayno dhaxalkii ambiyada waa ognahay Soomaa dhamaantan waa ka warqabnaa gudaynaya culimada in la dhageysto waa wixii xun ee maaragtay maxay ahayd in dhageysanay la iska daayo waxaan arkaynaa bisha Ramadaan masaajidii oo meel kale istaagay la leeyahay marka ay dhamaatana waxaad badan arkaysaa masaajidii oo sidii hore aan ahayn siiba dadka dhalinyarada ah safka hore hadda galaan laakiin maalinkii ay dhamaato bisha Ramadaan waxaad moodaysaa abitaankii alla uu dhamaaday in la leeyahay ilaahay maaragtay taqoysa mar walba la arko waa la ina faray taqwada Allah baana wax walba ku gaari karaa hadaan muslimiin nahay muslim baan nahay waa inaan diinteena ku faanno waa inaan culimadeena ku faanno waa inaan maaragtay maxay ahayd aan diinteena san u garab istaagi lahayn oo una dhaqmi lahayn una baran lahayn aan isku dayno insha Allah taas aan adigana aad iyo aad baan ku salaamayaa barnaamij fiican oo wanaagsan baad wadaa inaad ku celceliso oo ummadda Soomaaliyeed iyo culimadooda aad weydiiso intaad wax qaldan weydiin lahayd oo culimada Soomaaliyeed weydiiya yaa aad iyo aad uga fiican aad iyo aad baan walaalka ugu mahadcelinayaa waana ku soo dhawaanayaa walaalka ma sha Allah magaca أسدكيو برادر أسدكيو سودو برادر وانا نونلي أتاي سلا عانا كتاي هذا وين أسدو برنامج كذا إنه حكوا سبسين مشايخ ده ودي جستا معلومة ده ودي جستا شيخ آيات سلذة بدنا أرجعشة أدو تاجرتا شيخ حسين تبليغ أدي جستا سعد شيخ حسين تبليغ شيخ وتوا شيخ وتوا شيخ كلا وحوا أنت كلا وحوا أي كانوا في عين لكن شيخ أسافر دي هذا الشيخ حسين أدو جستا maxaad ku jeceshaa ugu duwanyaa culimada kale sidii kartaa wallahi sheegaasni waxa waaye si diinta si nasteexo ku faansinaya si magaalnimada ku jirta diintana sideeda waxa waaye si nasteexo lagu faansiyo fiicanta laakiin janno iyo naar la hadii laga sheekay macquul ma noqonayso marka sheegaas waxa la si oo macnaha si aqli ahaan ayu dadku wacdiga u faansiyaa ma sha Allah Allah ka abal mariyay aad weyn anagana kaaga madcelinayna sheekha aad u taageertana soo dhaweynayna إن شاء الله. ويل كلاشو والله المقعد. والله محمود سليمان طيب. طبعا ترى واحد ذاك تسمى ضام علينا. سوى نكسن. ما شاء الله. وحن كعد سنة هالواحد برنامج كنا عاد أنا ونوحيد علماء الصومال دوي فرق بدين. سوى نكسن. لكن قفك حول الله كرا دوق وجونا قلبي جيسو كجر. هذيك الشيء قد جعشة واكن. الشيخ عن جعله وشيخ كنياوي. شيخ كنياوي هذا جعشة. شيخ كنياوي أنا أدو جعله. صح. سوى نكسن. مركا وحن كويدينا وحيد هاي. حكوا قدوا يعني علماء كلا الصومال. والله وحكوا قدوا يعني أنك دلنا رضا تيك توك يحوق مارت أد وعي قلنت أد وجوانيا
marka sababtaasaan aad ugu taageeraa ugu taageertaa maasha Allah maxaad fari lahayd culimada kale talaftirkooda ayagana waxaan fari lahaa niyow inay dhankan dhalinyarada aad iyo aad maaragtay ugu wacyigeliyaan dhanka maaragtay baraha bulshada oo baryahan iyo waxyaalo aad u xun maaragtay ka bilowday oo dhaqan xumo iyo isqaawisaan iyo waxyaalo badan ay ka bilowdeen marka taasaan aad u dhiirigelin inay xoogga saaraan ay baraha bulshada ka soo muuqdaan laftirkooda si wanaagsan in baraha bulshada si wanaagsan aad leeyahay waa tala aad u wanaagsan anagana waxaan ku leenahay ramadaanka ilaahay ku barakeeyo sidoo kale ku soo dhawaada mar kale waxay la tagaan wiil Soomaaliyeed magacaaga walaalkay Daar Abdurrahmaan Maxamed adigana magacaaga ana Xuseen Cabdi Cabdille labadiinaba ku soo dhawaada VIP cajiib waxaan wada barnaamij aan qaadanayna bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa jira culimo Soomaaliyeed oo har iyo habeen u taagan inay diinta faafiyaan isla markaas qof walbana midaa saameyn ku yeesho gooni oo mar walba uu noqdo inuu dhageysto oo jecel yahay adiga aan kugu horeeyay كيفاد إسلامي واد إجازة أنا واحد الشيخ مصطفى هارون الشيخ مصطفى هارون أنا إجازة أدينا أنا الشيخ حسين علي الجبوتي الشيخ حسين بقى أدينا مر والبكبر الرجال بقول كيف سجاشة واتهاي لبض بابا على لبض علماء أنت إذا كلا سنة علماء ذي دمان مركب واحد يودينا وحيتها محيك قلت وين شقق خير يا والله أنا واسكجع لنا دهيست مر والبا ودرنجوني وكسي درنجوني وكسي واتهاي أدينا أنا لبض ورط علماء الجودها وجعلها صح علماء الصوماليين ما كلها الشيخ والبو سو غار وجعلها لكن الشيخ حسين wuxuu ku sii fiican yahay kelmadda oo tabliiqa gaarsiinta صح aad iyo aad uga hadlayo dadka diinta ku baraarujinayo صح asxaabiyo waxay soo mareen صح siirada rasuulka sheekh Mustafa inta badan wuxuu ka hadlaa siirooyinka rasuulka iyo maadiinka inta kasta uu ka hadlaa laakiin waa sheekh Xuseen waa baraarujintiisa aad bay u fiican tahay aad ay u sareysaa waatahay mid aan weydiyo maxaa dhiileedan marka culimada kale laftirkooda waan jecelnahay waa dadkiini waa jeceshiin laakiin waxyaabo muhiim ma jiraan oo dadka in laga hadlo haboonaan lahayd wallahi ma jiro jirta islaam ma jirta adigana ma aniga insha Allah horta culimada kala qaad ma leh guud ahaan culimada Soomaaliyeed way fiican tahay hadda shaqo aan dhaliilayna ma jiraan laakiinse culimada waxaan ku baraarujin lahayn insha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan hadda caalamka dadka waxa looga daydaa wanaagga marka inaan oga dayno aniga shakhsiyaantii markaas ka soo qaaday fooda la xiiranayo sarwaalka dib loo xiiranayo waxaas oo dhan waxaan oga daynaa adduunka wixii xumaanta oga daynaa inaan wanaag oga dayno culimada ay nagu baraarujiyaan oo diinta dadka dhalinyarada hadda taagan oo soo koray diinta lagu baraarujiyo soo gala la yiraahdo kitaabada loo akhriyo intaas ku baraarujin la sidaas leedahay aadan kaaga madalinaaya qayb qaadashada ay la qayb qaadatay aad ma sintiin la waxay la taagan wiilka Soomaaliyeed soo saak magacaaga magacayga waxa la Cabdikariin Cabdiwali dabcan taraawixda soo socota si fiican aad weyn waxa ka codsanayna waxa taa barnaamijka Ramadaanka wadnay culimada Soomaaliyeed way fara badan yihiin si fiican aad qof walbana qof oo dhageysta adiga ka ugu badan dhageysta jecesha niyo Sheekh Mustafa iyo Sheekh Saalax iyo Sheekh Mustafa labada waa jecel laakiin culimada Soomaaliyeed dhan waan jecelahay laakiin qiyaastan labada sheekh aan aad u dhageysta waata Allah cimriga u barakeeyo Allah marka culimada dhamaantooda marka waxaan ku weydiinaynaa waxay tahay maxaa kaga dooratay culimada kale niyo Sheekh Mustafa haddaan ku horeeyo Sheekh Mustafa waxa waaye wuxuu leeyahay xadarooyinkiisa waxa ku jira xogaa dhiirigelin baa ku jirta ma fahamtay waxa uu soo ku wacdinaya iyo haddana ku dhiirigelinaya marka Sheekh Saalax codkiisa iyo magaranaysaa sida uu wacdigu waxay aan u jeclahay marka labada culimada Sheekh Saalax waa hore ugu dubaysay magaalada Nairobi waqti raabtiisa culimada hore Nairobi waa ducaynaya Sheekh Ilaahay inuu cimri dheersi waatahay maxaad fari lahayd kuwa kale culimada kale culimada Soomaaliyeed waxaan fari lahaa inay bulshada magaranaysaa mar walba wacdigaas u wadaan oo magaranaysaa dadka saa u nasteexayaan cimri dheer iyo caafimaadna oo rajeynaya dhammaantood waatahay aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waatahay waxa ay la taagan laba nin oo xaafadan markay dhex istaagaan saameyn weyn ku leh magacaaga waxaa la yiraahdaa Saciid Cabdicasiis Jaamac baa la yiraahdaa maxaa ku magac dheertaa boqol jiro nin la yiraahdo oo aad man ku anigana magacayga waa Bishaar Cabdi Maxamed Bishaar Hirid baa la yiraahdaa Bishaar Hirid labadiina way ku soo dhawaada VIP cajiib su'aashani qaba waxay tahay oo su'aal Ramadaan ku saabsan culimada Soomaaliyeed wayna baraarujiyaan mar walba adinka kee ugu badan qof walba dhageysta shaqo ugu badan dhageysta boqol jiro wallahi waxaan dhageystaa shaqo umul la yiraahdo shaqo umul aad iyo aad oo macna u baraariyo TikTok iyo waxyaalaha ka hadlo
oo gabdhaha micnaha heesaha iyo dadka lacaynay oo ka hadlo oo yiri Ramadaan baa lagu jira Ilaahay laga boqo sheedaankana waa xiriye mut lama rabo micnaha sheedaankeena marka soo taagay marka waa culimada ninka u taagan waa shaqumul u taagan taagan adigan anu waxaan aan jeclahay oo markaas dhageystaa Sheikh Hussein Ali Djibouti Sheikh Hussein Ali Djibouti hadalkiisa iyo balaaqadiisa qof dareenkiisa qaadaysa qof walba dareen goonaysiinaysa waxa mid aan ku weydiiyo muxuu kaga duwan yahay culimada kale wuxuu kaga duwan yahay asagu qof balaaqu leeyahay balaaqadiisa qof wuxuu ku safeeyaa balaaqadiisa sax marka adiga maanta hadalkiisa ama kan hadlayo balaaqadiisa dheedhiin marka sheekhaashka wuxuu duwan yahay balaaqada iyo Soomaaliga iyo macnaha soo wax bulaaqeeyo uu sheegayo uu sheekhaashka lagu duwan yahay yaano saas leedahay waxa boqol jiro aan ku imaado maxaad isdhigi kartaa culimada kale ugu duwan yahay shaqumul wallahi nin aad ugu fiican way ma sha Allah oo isli u joogo culimada sax anaga noo joogo markii la fiiriyo sax dadkana wacdinayo ma garatay aad weyn oo dumarkana waxa uu sheegayo wixii dhunsan wixii federeesan sax inkastoo hadda Ramadaan lagu jiro aad iyo aad tubtoobka oo ka dhax muuqdo sax waxyaalo badan xadiis oo micnaha ka hadlo oo u sheego xagga diinta ku baraariyo saas ku fiican yahay shaqo aad u fiican yahay maxaa dhiilan culimada kale adiga culimada kale Soomaaliyeed ما علماء كلهم في عينه وكخل ضل ملهن علماء الصوماليات ونوعديه والشيخ ملوه الريو والشخص بدهم وين كشاش مصطفى كتشلو كله في عين شخصنا مدحون ومعناها أما حقها هصي متشلو ما كان واحد ليه برابي يقولون قصيب برارجو ومعناها يحسب ذي واحد من الشيخ الصوماليات يذكر السلام كأقول بنيسان هنا يسوق بيسان وسيور مريسان وذكر معناها ذكر أدوك ده صح معنا يا dumarkii raggii waxa dhan regalbeed walaayana qribtay marka in dadkina barnaamijyada baan ku dhiirigelinayaa insha Allah adigana waxaan leeyahay ma sha Allah sidoo kale oo inaan dadka loo baraarujiyo loo sheego oo loo wacdiyo qalbiga loo maciyo loo nasaxay ma sha Allah aad baan ku salaam ma sha Allah aad aad mudan barnaamijkeena ka soo muuqata ma sha Allah arag sidoo kale taagan wiilkaas dhig kara xaafadda sida ugu cadeeya inta wariyaa naga dabaashan iyo ilaa aad taqaani ugu cadeeya ma leena kaftan ma jira baashi way hoos dhigaya miya waata intaasna waa kaftan ku soo dhawo VIP ajib waa dhawahay laan aada weyn magacaygu waa magaca masaakiinta waa shacabka wadaneeya Umar Dolaal waxaan ku weydiinaynaa xitaa culimada Soomaaliyeed dhammaan dadku way wada jecel yihiin dhammaan culimadeena waan jecelnahay sheekhay saameyn gooni kugu yeeshay marka dhigaysan liyow hal sheekh wanta laba sheekh wanta taageera mid waa sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil sax waxa ka dhiirigelinta markaan rabo inaan habeenkii muhibbada baan ku tuurtaa midna waa sheekh Xasaani sax Xasaani ma garanaysaa xagga maartay labada sheekh waa si fiican u taageera labada sheekh maxay kaga duwan culimada kale sidii kale iyo warta sheekh Mustafa waa nin wax bartay waana nin maadi iyo diini ba maaragtay hadii la dhaho ka dhisano aan kuna bala waxa la isku dhaafay waa balaaqada moogtaay cilmiga waa la wada leeyahay laakiin waa balaaqada waa nin xagga balaaqadiisa u fiican tahay ma garatay sheekh Xasaanina xagga rogitaanka waxbuu saa gabigiisu ma garanaysaa isugu dara bahashiyo shaandhaysano maca waxeed wadato afka ka gelinaya moogtaay aadan ku caajisay marka waa sida laan dheere aad ma santahay aad mudan walaalkeen Abdiqani Ahmed Maxamed Abdiqani Ahmed oo ku soo dhawo VIP ajib waan ku dhaw hortuntii VIP ajib insha Allah salaad tarawih ka imaadaan sifaa waata walaalkay adoo kamarada fiirinayo waxaan ku weydiinaynaa waxay tahay culimada Soomaaliyeed way fara badan yihiin shaqo adiga inta badan aad dhigaysataa horta runtii culimada Soomaaliyeed hal wax xun yaana ma dhaayo aan loo fiican ma dhaayo ma garad sax laakiin Sheikh Hussein Ali Djibouti iyo Sheikh Umula taageeraan labadaas taageero sax si fiican maxay kaga duwan culimada kale oo ku taageertay baraarunta ummadda Soomaaliyeed ee baraarujinayaan ee ka reebayaan faqsiga ay faraayeen macruufka aan ku taageero insha Allah maxaad fari lahayd culimada kale oo aad diilaad ayagana sidaas sameeyaan waxaan fari lahay bulshada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada jiilka cusub oo soo baxay inay ka reebaan faqsiga ay faraan macruufka sidaas aad diilaad ay ka reebaan munkarka ay faraan macruufka adan kaaga mahad celinaya walaalkayga aad ma santaas Ilyas ku soo dhaw VIP ajib aad weyn ku dhawaa Ilyas dabcan inta badan maxaadarooyinka aad dhigaysataa aad weyn culimada Soomaaliyeed aad dhigaysataa aad weyn kee mar walba saameyn kugu yeeshay aad u dhigaysataa Sheikh Hussein Ali Djibouti Sheikh Hussein aad u dhigaysataa wuxuu kaga duwan yahay culimada kale
codkiisa ku qirgelina ninka codkiisa khilkhil ku gelina waa tahay maxaad dhihi lahayd marka culimmada kale ayaga laftirkooda ninka waxaa waaye codkiis iyo siduu saxaabadu kuu soo xasuusnaa iyo waanada ninka waxaa waaye aad weyn ninka aad u saameyn badan aad weyn waa tahay maxaad dhihi lahayd dhalinyarada way u baahnaan lahaayeen in lagala hadlo inta badan waxaa waaye walaa mashiikil laga dhalin wax laga laakiin sheekh Xuseen Ali Jabuuti adag yahay ninka nin adag waa tahay nin aad weyn adag waa anagana kaga mahadcelinayna ma sha Allah magacaaga qadar ku soo dhaw VIP qadar waxa ka hadlaynay ramadaankii maadaama lagu jiro maxadarooyinka aad loo dhageystaa culimada aad loo dhageystaa diinka aad kor loogu qaadaa sheekhe inta badan markaa dhageysanaysa saameyn kugu yeesha bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ugu yeesha sheekh la yiraahdo Soomaali horta ma dhageystaan sheekh Soomaali ma dhageystaan ma dhageystaa Jabuutiyaanka waxa ugu fiican Soomaalida laba nin baa dhageystaa waxa weeye waa sheekh Xuseen Ali oo Jabuutiyaana iyo nin Masri oo Carabiga diinta aad yaqaan qoliyaha aan ahayn sheekh Carabiya oo diinta yaqaan waxa weeye fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamuun qofka waxa qabal wadiniya marka Soomaalida waxa sheegaynaa dadka culimada ah saxda dhageysta culimada waxa weeye culimadu waa labo midna wuxuu kugu wadaa god midna waa danayste midna waa daaci daaciga dhageysta waxa weeye daaci waxa weeye Xuseen waa daaci weeye hal dhageysto waa ka faa'iideysaa culimadu hal dhageysto diintana Soomaalidu diinta qabiilka weyn marka ilaahay